waxaan u gudbaynaa waraysigeena qaybta xiga waraysigeena qaybta xiga daawadayaal wuxuu noqonayaa muranka ka taaga calanka Soomaaliya in ay ku jirto astaan marka aan ahayn astaan islaam oo ah astaan kristaan astaanta Soomaaliyana ay ku jirto kristaan soo dhawow mar kale iyo mar saddexaad ba Sufyaan waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan quruxda badan aad ila qabanayso Sufyaan waxaad nooga warantaa calanka Soomaaliya taariikhdiisa marka hore ولي أمال هذه هذا ما سنتهاي it's pleasure إن كل وذاقو ورسيان برشدنا على وذاقو وحن ربا علنك يو إن لبدلو قالوا لها أنا وضنو مدو أيو هذا سو سعودي عن أنت أنا بدلتان كيسة أنا أتجن وحن ربنا أساس كيسة هالكي وكيمت علنك Soomaaliya waxaa markii ugu horeysay wadankeena la keenay 1889 waxaa keenay gumaysiga Talyaaniga waa markii gumaystuhu uu yimid wadankeena waqtigaas ayaa la keenay wadankeena waa soo 1936 markii la bedelay kii hore kii dambe lagu bedelay sidii ugu jiray 1936 1954 ilaa calanka aan maanta haysanahay waa calankii Talyaanigu uu keenay ee uu sameeyay Soomaaliya si fiican waxa keenay gumaystiga Talyaaniga dadka qaar oo aniga kamid ah Soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay inay keeneen ururka Israel ama Cabdullaahi Ciise Cawaale sidee ku dhacday calan la leeyahay intaas oo qof baa keentay in gumaystiga uu keenay hadana loo bedelo Absolutely Amal thank you very much هذا umahadsantahay waa sida dad badan oo Soomaaliyeed ay qabaan laakiin hadda dad badan waan ka qancinay wayna fahmeen anaga waxaan rabnaa inaan soo barino taariikh wax la yiraahdo taariikhdii waxaan ku daraynaa wax la yiraahdo logic ama aqli calanka Soomaaliya waa mid koowaad waxaas keenaya cadeynaya sidaas inay sax tahay sidaan sheegayno taariikhdii haddii calankii buluuga ah ee xidigtii cadi dhexda uga jirtay 1889 uu Soomaaliya soo galay oo Talyaanigu uu watay ma dhihi karnaa 1954 la sameeyay ma dhihi karno logic ma haddii uu ku jira kii 1936 markii Soomaaliya fascist Talyaanigu fascist uu noqday ma dhihi karnaa Talyaan waxa sameeyay qof Soomaaliya ma dhihi karno haddii calanka Soomaaliya ee buluuga ee xidigta cadaanka dhexda ku lihi uu ku jiro astaantii ama coat of armskii uu Talyaanigu sameeyay 1954 oo ah mid maanta aan haysano oo aan cid ku haysatay aysan jirin ma dhihi karno Talyaaniga sameeyay waxa intaas ii dheer Talyaanigu wuxuu tagay wadamo wuxuu gumaysanayay ama uu la dagaalamayay wadamo kale oo Soomaali ahayn sida wadanka Liibiya oo kaleeto Liibiya markaas waxay laba wadan labada wadan ee Liibiya waxa la kala oran jiray Cyrenaica iyo Tripolitania labada wadanba waxa ku jira calankii astaantii gumaystaha ee uu sameeyay markaas waxa ku jira calankii buluuga ah ee xidigta cadaanka dhexda ku leh taas macnaheedu wuxuu yahay wuxuu ahaa calaamad Talyaanigu uu wato oo isaga u gooni ah oo ah calaamadiisii gumaysiga therefore sida daraadeed ayay waxaan macquul ahayn oo aan aqliga geli karin taariikhduna ay diidaysaa in la yiraahdo ama Cabdullaahi Ciise sameeyay ama SYL sameeyay ama Maxamed Cawaale Liibaan sameeyay intaba macquulba SYL-na Soomaalida qaar anigaba kamid ah waxaan leenahay SYL keenay mar waxaan leenahay Cawaale keenay mar waxaan leenahay waxa keenay Cabdullaahi Ciise haddii aad tiraahdeen waxa keenay Talyaaniga maxaa cadeynaa oo umada loo sheegi karaa absolutely wasantaan ku sheegaba waxaan haynaa calankii 1889 waxaan haynaa kii 1936 waxaan haynaa astaantii qaranka ee Talyaanigu uu sameeyay 1954 oo ah mid maanta aan isticmaalno calaamada maanta aan isticmaalno waxa ku jira calankii buluuga ah ku dhisi dhex jira qof Soomaali oo sheegta male Cabdullaahi Ciise ma sheegto Cawaale ma sheegto SYL ma sheegtaan no one oo sheegana ma jiro waxay cadeyn u tahay in Talyaanigu keenay because Talyaaniga yaa sheeganay dhahay anaa sameeyay those are mine waxa taasi dheer oo cadeyna haddii calanka buluuga ee xidigta ku leeyahay uu Cawaale sameeyay ama SYL sameeyay ama Cabdullaahi Ciise uu sameeyay haddii saddexdoodu ma Talyaanina ma ahaayeen Soomaalina ma ahaayeen because calan macnaha Liibiyana ma ahayn ka wada Soomaalina ma ahayn because calankan buluuga ee xidigta cadaanka dhexda ku leeyahay waxa maanta taariikhda ku qoran inuu yahay calanka inuu ku jiro oo qayb ka yahay calankii Talyaanigu uu ku gumaysanayay ama uu kula dagaalamayay wadanka Liibiya marka calaamada la leeyahay way ku jirtaa astaanta iyo waliba calanka xagee kaga jirtaa calaamada Kirishtaanku waxa ku jirtaa waa astaanta qaranka coat of arms ama waxa loo yaqaan insignia ama emblem
waxay uga jirtaa qaybta koreeto designka loo sidoo Talyaanigu u design gareeyay markaad fiirisid coat of armskii hore ee Talyaanigu uu design gareeyay 1889 iyadii unba waxa laga bedelay coat of armskaas waxa ku dhex jira shabeelkii waxa ku dhex jira calankii buluuga xidigta cadlaha waxa ku dhex jira caleentii oo la yiraahdo macna awbaarkii ku dhex jiro waxay leedahay boqorkii dusha ka saaran ay leedahay Talyaanigu isagii ayuu soo qaaday meeshii boqorka ahayd maadaama markaas ay socotay wax la yiraahdo Christianization ama in Christian laga dhigo dadka Soomaaliyeed oo aan maanta jecelnahay interviewgan inaan uga mahad celino madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre oo runtii qayb ka qaatay in la istaajiyo gaalanimada in wadanka laga istaajiyo qayb ka qaatay hadda dhisa maxadan aan rabo inaan qayb yar uga hadlo ayaa waxa dhacday in Talyaanigu uu qaybtii kore ee boqorka ahayd uu calaamadii Christianka dhex galay calaamadii Christianka ahi ma aha meesha kaliya ku jirta halkaas waxay sidoo kale ku jirtaa calaamadii SYL ay ku jirtaa labada calaamado Christianka ku kala jira waxay kala leeyihiin laba magac waxayna leeyihiin macnaha laba firqa kala haysta mid waxa la yiraahdaa Coptic Christian Cross ama qudbiyiinta Christian Cross waxa isticmaalo Christian dadka degan oo masiixiinta degan Ethiopia Masar iyo Lebanon waxay leedahay qaab ka duwan leedahay waxa la dhahaa English waxa lagu dhahaa Palm Christian Cross kan kaleeto oo ku jira astaanteena qaranka waxa la yiraahdaa Crucifix Quadrada ama Christianka iyo calaamadda Christianka oo afarta gees oo isleeg lahayd dadka Soomaaliga markaan u sharaxayno waxaan aragnay dad badan oo dhahay plus calan lama gelin si fiican marka qof walba uu arko meesha kore astaanta waxa ku taala plus yar ku yaal plus kaasi wuxuu ku jira marka qof walba Soomaaliyeed jiil walba soo korayeen waxay aaminsan yihiin in ay plus well not before ma bal ogeynba macnaha waxyaabahan ugu soo baxa hadda intaan campaign-kan wadnay aan aragnay waxa kamid ah dadka Soomaaliyeed astaanta qaranka iyo calanku isku mid ay u ahayd waayo marka tiraahdo astaanta qaranka calanka maana ku leeyahay is not marka calaamadaas isleeg afargeeska isleeg ee ku jirta astaanteena qaranka waxay ku jirtaa calanka wadanka la yiraahdo Greek oo loogu macdaray calaamadanba la yiraahdo waxa leeyahay Greek Christian Cross calanka Greega ay ku jirtaa ayadoo isleego afargees isleeg waxay ku jirtaa calanka wadanka la yiraahdo UK waxay ku jirtaa macnaha laba cross oo kala kula jirta laakiin ayadana waa ku jirtaa waxa ku jira Andrew Christian Cross iyo Maltese Christian Cross ayadana waa ku jirtaa waxay ku jirtaa calanka wadanka Georgia waxay ku jirtaa calanka wadanka Switzerland waxay ku jirtaa calanka ay isticmaasho hay'adda Christianka ee ugu weyn caalamka oo leeyahay Red Cross calaamadii halkaas inoo jirta waa dad islaamana Christian manihin macnaha so amazing so macnaha wax waaye breathtaking in qof Soomaali markuu arko waxaana keenay runtii dadka Soomaalida ay ma yaqaanaan calaamadaha Christianka dhaqamada Christianka ma yaqaanaan calaamada halka calaamada ugu badan ee la isticmaalo midda oo hoosta u dheer dadku intaas yaqaanaan laakiin inay far badan yihiin ilaa 70 gaaraan lixda ugu waaweyn marka aan rabaa inaan xuso si dadku u fahmaan lixda ugu waaweyn waxa la yiraahdaa waxa calaamada ugu horeysa ee Christian Cross oo number 1 ah waa mid calankeena ku jirta waxa la yiraahdaa Greek Christian Cross waa midda pluska oo afar gees isleeg waxa ku xigta midda janjarta oo ku jirta calanka Ingiriiska waxa la yiraahdaa Maltese waxa ku xiga St Andrews waxa ku xiga Latin oo midda dadka Soomaalida ay badanaa ay yaqaanaan waxa ku xigta Coptic macnaha patriarchal oo ay isticmaalaan Russia iyo wadamada Slavic ay isticmaalaan waxa ugu dambaysa midda lixaad ugu weyna Papal Christian Cross waxa isticmaala popka bisa isticmaala oo asiga calaamad u tahay sidaas u kala duwan yihiin marka annaga oo islaam ah كسكو إن أنا وأستانت أنا سميسن كسكو إن أنا لهين وحكوجته علامة كريستيان كإيجالت معقولنا معها ما أنت مع تفسوحرته أنا هذا دملا وبلس معقول ما because قف سوماليان واتها إن سفيان وأنكار حق لا شيء إن مدة إنتهى لك أي إذن قاعدة إن أوجاتنا علامة كجرت على كينا well أنا waxaan research ama baaritaankan waxaan soo bilownay 2001 waa fahmi kartaa marka intay nagu qaadatay ilaa maantay campaign-kan hadda waxaan ku jirnaa 4 bilood bisha afraad ku jirnaa inkastoo macnaha runtii aan aad u faraxsanahay waayo waxaan rajaynaynay inay nagu hor yimaadaan culays fara badan iyo mucaarad fara badan laakiin mucaaradkii culayskii ma laha dadka Soomaalida ay waxa Ilaahay maadis inay baraarugsan yihiin maanta
aadana loo soo dhaweeyey rabaana inay ogaadaan xaqiiqdii fahmeenna macnaha ma malay kartid baaritaankii markaan hadda bannaanka soo dhignay saakay waxaa ila soo xiriiray weligii ma arkin ninkaas waxaa la yidhaahdaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waxaa la yidhaahdaa macalin burhaan macalin burhaan wuxuu ii soo diray informationkii annaga baaritaankii aan galnoo kale mid ah ayuu ku jiraa keligiisna asagoo wuxuu soo diray marka soomaalidii waxaan ka wadaa macalin burhaan kaliya maahane boqolaal soomaali waxaa jira wixii markii loo sheegay baaritaan galeen research sameeyeen qof walba markuu research sameeyeen waxay qaateen in ay xaqiiq tahay calanka Soomaalida ee maanta aan haysano inuu yahay astaantii gumaysto walina dul saaran calaamadda Kiristaanka ah ku jirta astaanteena qaranka inay tahay mid ugu weyn ugu caansan waxa kale oo cilada kale jirta waxay tahay macnaha calanka Soomaaliya in macnaha astaanta Kiristaan astaanta Soomaaliya ama astaanta qaranka Soomaaliya panelka hoose meesha loogu talagalay in wadanka halku dhigiisa lagu dhigo waa maranta waxba kuma yaalaan macnaha waxyaabaha cajiibka marka calankeena maalinta calanka aan haysano marka sidee rabtaan in aad uga dhadhicisaan ummadda Soomaaliyeed in aad bedeli rabtaan ama campaign-ka aad ku bedeli lahaydeen aad wadaan calankii Soomaaliyeed aad rabtaan calan kale oo marka aad soo garateen adigii groupkaaga iyo waliba intii markaas idin taageeraysaba in aad markaa kaga dhadhicisaan ummadda Soomaaliyeed iyo waliba madaxda well number 1 waxaan dadka uga dhaadhicinaynaa wariye amaal oo kale in aan la sheekaysano iyo dadka la midka inaan isticmaalo social media inaan Facebook social media baraha bulshada inaan isticmaalo xaqiiqdiina waxa waaye success rate-ka ama horumarka aan ka sameynay waa tremendous is very very good aadaan ugu faraxsanahay waxaan kaloo faraxsanahay shacabka Soomaaliyeed inay yihiin dad maanta kadib muddadaas dheer baahi u qaba inay ogaadaan xaqiiqda wadankooda iyo taariikhda wadankooda macnaha ka hor intaan anagu hadda aanan programka aan sameeynin qof Soomaaliya oo ogaa ama runtii dhahaya boqortooyooyinka intaas la calamadooda ma uusan jirin dadku qof walba waa ku baraarugaba boqortooyina la jirnay oo gumaystaha taariikhda waa ku horeysay oo lacag aan lahayn macnaha dadkii waxa fahmi kartaa macnaha xiisaha ay u qabaan inay ogaadaan information noocaas now saasaan rabnaa dadkan uga dhaadhicino dadkiina way qaateen madaxda wadanka waxaan la wadaagaynaa one by one dad badan oo madaxan la hadalnay congress baarlamaanka ku jira senatka ku jira dawladda ku jira way noog yihiin marka madaxdii dalka waxaan kala kulnay taageero runtii fara badan laakiin waxaad moodaa madaxda waqtigan waxa lagu jira xilli kala guur madaxda waqti xasaasi weey madaxda dalka markaan la kulanay qof walba hiba waxaan noo soo jeediyay fikira in arrintan wadno bulshada aan ka soo dhaadhicino therefore ayagu qaarkood way og yihiin qaarkood way ku jirtay inay sameeyaan runtiina waxay nagu bogaadiyeen inaan tilaabadan qaadnay waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin anaga laftirkeenu waxaan rabnaa ama qorsheena ku jirta in aan bulshada marka hore bislayno because waxaan bedelayna maaha calanka kaliya waxaan rabnaa inaan bedelno taariikhda Soomaaliya ee dynamiga ay ku socoto waxaan rabnaa inaan bedelno inaysan jirin wax la yiraahdo midgaan waxaan rabnaa inaan bedelno inaysan jirin wax la yiraahdo boon waxaan rabnaa inaan bedelno taariikhdeenu 1960 ka soo bilaabatay waxaan rabnaa in aan qofka Soomaaliga ee wadaniga ah in uu dareemo shucuur diineed oo islaamnimo iyo wadaninimo waxa ugu horeeyo dareemayeen ee uu san noqonin qof tilaabadu haduu amaanayo ama faanayo ku faana qabiil waxaana inaan ka tirtirno taas aan u soo laabano qabiilka midgaanka iyo waliba waxyaabaha qaldan ee ummadeena Soomaaliyeed aaminsan yihiin calanka aad rabtaan hadirtaan calanka taagan ee Soomaaliya oo dhan ay isticmaasho in aad ku bedeshaan sidoo uu eg yahay muddo intee leeg ay idinku qaadatay calan noocaas ah in soo saartaan well thank you very much wariyamal runtii waa su'aal aan jecelnahay in la weydiiyo waayo waxaan rabnaa inaan ku cadeyno wareysiyalka marka aan daawataad qofka uu daawado Soomaaliga ahi inta lagu sameeyay calanka Soomaaliya iyo xilliga ay qaadatay waxa la yiraahdaa muddo ka yar 24 saac oo waliba cawaali afkiisa ka leeyahay 24 saac ka yar calanka lagu sameeyay qof walba Soomaali wuxuu fahmi karaa maanta calan 24 saac ka yar in lagu sameeyo it is impossible calan 24 saac ka yar ma lagu sameeyo karo impossible waxaan suurtagal ahayn ka waran hadii raay ururin la sameeyo oo doorka qof meesha taagneed oo rabay in Soomaaliya ay calan yeelatay ay raay isku darsadeen ay la yimaadeen kalar u gaar ah iyaga sidaas oo lagu sameyn karo no ma lagu sameyn karo because waxay u baahan tahay calan marka la sameynayo waxay u baahan tahay processkaas stage 1 wuxuu ka bilowdaa yaana anagu dadkan yihiin maxay taariikh u leeyihiin maxaa ka turjumaya iyaga
waa number 1 marka intaas lagu guuleysto oo macnaha la soo qaato calaamadihii wadanku uu lahaa oo kaleeto wixii wadanku hodan ku ahaa dhaqamadiisii haday diinta haday wax kala tahay marka intaas la soo ururiyo ayaa waxa la soo ururinaya markaas la keenaya hadana calankan midabada aan rabno maxay ka turjumaan midabkii markaas la sii macnaynaya oo waxa la gelinayaa midabkan micnihiisu muxuu u taagan yahay maxaa la dhihi karaa dadka maxaan u fasir karnaa marka intaas la keeno oo labadaas la soo diyaariyo ayaa waxa la keeni karaa calankan yaa nala leh anaga ma jiraan dadka loo samaystay ma jiraan qaanuun kale nolol waa ciladaha wadanka maanta calankan uu leeyahay ugu yaraan waxa isticmaala ciidamada wadanka Chile ciidamada badda wadanka Chile waa isticmaalaan waxa isticmaala calankeena Soomaaliya maanta leena maanta isticmaala ciidamada cirka ee wadanka Mareykanka isticmaala wasaaradda difaaca Talyaaniga isticmaasho waa la isticmaala waa farbadan marka lagama fiirsan taas micnaheedu ma aha in calanka loo sameeyo calankan diyaar u ahaa sidaas ay macquul ku noqoto in la keeno afar saac wax ka yar si fiican maadaama anagana wadankii u guumeystay marka ka sii baxay absolutely ma guumeystay asaaba keenaba asaga wax u diyaarsanaa way wax ugu talagalay way anaga marka calankan marka aan sameeynay ama aan soo diyaarinaynay waxay noo qaatay process dheer waxaan qoraynay hal sano iyo 2 bilood taqriiban hal sano adigu ku dhawaad ayaan waxaan ka fakaraynay kaliya waxa Soomaaliya ay leedahay oo ay uga duwan tahay caalamka kaleeto because anigu marka aan rabo inaan la hadlo amaal waa inaan aqaano waxa ay tahay oo ay dadku kale uga duwan tahay gabar kale oo iska socotay inaad amaal ugu yeertid waa qalad iyo wixii la mid ah marka waxaan rabnay inaan raadino Soomaaliya maxaa u gooniya maxaa anaga unique noo maxaa naga turjumaya markaan helnay waxaan haddana isweydiinay su'aasha waxaan naga turjumayahay ma yihiin wax awood u leh ama ka dhaadhicin kara ummadeena in ay noqdaan better citizens ama wadaniyiin fiican markaan intaas ku guuleysanay oo ka doodnay ayaan waxaan aan calaamadihii macnaha iyo midabadii iyo inaan dib ugu laabano taariikhdeen anagu aan lahayn waxaan runtii marka hore ka dood inaan qaadano ama aan soo qaadano midabadii boqortooyadii hore ee Soomaaliya u jiray markii aan muddo 3 bilood wadnay waxaan noo soo baxday midabadaas aan qaadanayno inay ugu bateen macnaha inay u ekaadeen midabada wadamada Afrikaanka oo kale taa oo ah sida guduudka yelowga iyo cagaarka laakiin buluugan iyo cadaankan sida aan aaminsanahay waxay ka turjumayaan cirka iyo badda absolutely anaga laftirkeenu waxaan qaadanay cadaankii iyo buluugii ama labadii midab ee basic ahaa ma aanan bedelin waxaan rabnaa waxaan ku darnay sharaxaadii baan aan ku sii kordhinay oo midabka cadaanka ahi wuxuu u taagan yahay purity anaga waxaan nahay waxyaabo naga turjumaya macnaha Soomaali waxaan dad isku diina isku dhaqana isku mid ah waxa la homogeneous sifa waa hal ummado dhan walba iska mid ah cadaanku wuxuu u taagan yahay waa mid taas ka mid ah wuxuu u taagan yahay nabad raadis inaan nahay wuxuu u taagan yahay mid kale wuxuu asal ku leeyahay diinta islaamka oo waa calaamadii la isticmaalo waqtiga rasuulka uu joogay sallallahu alayhi wasallam marka cadaankiisaas buluugu waxa Soomaalidu la qabsatay inaan xaqiiqna inaan leenahay badaadu dheer inaan leenahay blue ah inkastoo dad badan oo hadda macnaha dhageystayaasheena ama taageerayaasheena ay yiraahdeen war cirka ha sheeginina because cirku waa abaar ma rabno macnaha maadaama kalar ciidan cir lahayn waa cir abaar inay yiraahdeen laakiin waxaan ka turjumaynaa macnaheedu taas wuxuu yahay meesha aan deganahay geographical ahaan ay ka turjumaysaa labadaas midaban qaadan midabka buluuga sidoo kale caalamka waxa loogu yaqaanaa inuu yahay power ama awood inuu yahay oo waa taas hadda ay isticmaalayaan ugu yaraan 3 wadan ay maanta isticmaalaan exactly calankeena oo kale oo isticmaalaan ciidamadooda isticmaalaan sababtuna ay tahay awoodda sababtana macnaha awoodda macnaha waxa loogu turjumay inay tahay awood inay tahay that's why ay isticmaalaan dadka caabuda shahaadiintu waxay u haystaan inuu yahay awood inuu yahay inkastoo macnaha ay uu kala duwan yahay xoogaa yar calanka marka anagu labadaas midaban qaadan waxaan ku soo dhexda ka gelinay bishii iyo xidigtii oo u turjumaya islaamkii oo midabkii ayagu buluugii leh kalarka buluuga wata xidigta dhexdeeda waxaan ku qornay Allah oo ah de magaci Ilaahay aan rabno dadka in calanku waa hanuuni calanku waa wacyigeliya calanku waxa la rabaa inuu bulshada ka keeno inuu ka soo dhaxbixiyo qofka qulubtiisa inuu ku abuuro kalena ay arkaan ay ogaadaan dad islaam inay calankan leeyihiin absolutely very correct allahida marka design-ka aan u sameynay waa design runtii aad u qurux badan wuxuu yahay waa design meel kasta oo aad ka fiirso
wareeg haddaad wareegto 360 degrees markaa wareegtid calankii markastood allah fiirisid allah ma isbedelayso marna isma bedelayso markasta dhan walbood u gadisid haddaasaan u gadisid dhinaca kale haddaa gadaal ka fiirisid markasta waxaa ujeedaa allahu sax waa design aad u qurux badan waxaan ku darnay marka taariikhdii aan dib ugu laaban waxyaabihii talyaanigu uu ugu qasbay in calankan la qaato waxay ahayd in uu diido calankii SYL calanka SYL wuxuu lahaa 3 midab waxaa ku jira bishii iyo calaamadii Kirishtaanka oo Coptic Christian Cross la yiraahdo laakiin waxaan ka soo qaadanay muhiima 5 xidigood ku taalay 5 xidigood waxay u taagneed 5 Soomaaliya 5 xidigood aan soo qaadnay soo galin calankii sidaas aan u dhisan kareen waa calan blue ah oo cadaan iyo calan oo Soomaaliyeed oo cadaan iyo blue isku jira bili xidig leh Allah ay ku qoran tahay xasan xidigoodna leh dadka qaarkood taageerayaashana qaarkood ayaa waxay soo weydiin inaan ku qorno tawxiidka inaan ku qorno ma xuma laakiin hadda dadka intiisa badan waxay ku qanacsan yihiin Allah inay ku taalo halkaas oo macnaha meeshaas ay ka fiiriyaan calankaasi marka qofka Soomaaliga ee calanka iskale ee ku soo kore ku soo barbaara wuxuu calankaasi ka dhaadhicinayaa ama ku hanuuninayaa jacayl diinta islaamka jacayl wadaninimo iyo jacayl taariikheed wadankiisa waxa meeshii yaraanaya jacaylkii loo qabay qabiilka ayaa yaraanaya runtii wax muhiim ah aad uga fakarno waqti dheer nagu qaatay waxaad sheegtay astaanta hadda aan isticmaalo in ay hoos waxba uga qorneen laakiin uu jiro wadamo badan sida wadankan aan joogno Kenya ay ku qoran tahay Harambee marka astaan marka ka turjumaysa ma miyaad u sameeysantiina mise sidii horaad ku dhaafteen absolutely waa bedelnaba ayada dhanba waa bedel marka waxaan ku jiray sharaxaadii calanka waxaan rabaa inaan ku xijiyo tan calanka marka qofka Soomaaliga ee calankan iska leh ee ku soo barbaaray wuxuu ku abuurayaa shucuur islaamnimo shucuur wadaninimo iyo in uu qofkaasi noqdo qof macnaha naftiisa ku faraxsan qofka banaanka ka jooga ilaan calanka marka la abuuro waxa loo abuuray wuxuu leeyahay two dimensions laba dhinaca qofka iska leh iyo dhinaca qofka aan iska lahayn dhinaca qofka aan iska lahayn calanka wuxuu ka keenayaa respect inuu xushmeeyo diinta islaamka inuu qofkan ogaado diintiisa inay islaam tahay inuusan ku xadgudbin nin waxaa jira taariikhda waxaan rabaa inaan ku soo daro nin waxaa jira Australiana sanad kasta waqtiga calanka uu leeyahay calanka Soomaaliya saara haddii calankaas Allah ay ku qoran tahay ninkaas ma saareen wuu ka leexan lahaa laakiin ninkaasi dadka Soomaalida ma oga asaga waxa calankan micno kale asagu leeyahay oo asagu dadka Soomaalidu waxay aaminsan yihiin calankoodii meesha la saaray ninkan Soomaali jacayl ka ninka Soomaali jacayl ka ma ninkan calankan asaga micno ugu turjuma waxba ugu jira asaga astaanta qaranka soo hartay astaanta qaranka waxaan ku sameynay design-kii aan bedelnay waxaan soo qaadanay calankii oo gaashaankii aan dhex gelinay meeshii calaamadaha Kirishtaanka ay ku jireen waxaan ku xusnay SYL oo 5 xidigood oo SYL aan gelin calaamad Kirishtaan oo kasta waa ka bixinay hal xidig aan gelinay oo u taagan 5 Soomaali u taagan aan ku xusayno Soomaaliya dusha waxaan ka saarnay taaj ama boqoradaas waxaan ku xusaynaa boqortooyinkii Soomaaliya ee hore u jiri jiray waxaan rabnaa qof shan boqortooyo shantii ugu waaweyneed ayaan ku xusnay ama macnaha 5 baan ka dhignay laakiin waa inay boqortooyin jireen macnaha ay ka turjumaysaa waxaan rabnaa qofka taariikhda Soomaaliga ahi in aysan ugu ekaan oo ay ugu bilaaban 1960kii bal taariikhdu inay ka bilaabato qarnigii 7 qofka Soomaaliga marka uu ogaado ama caalamka oo dhan wadamo waxaa jira yaryar adduunka oo aan lagu maysan karin oo aan lagu xadgudbi karin waxa keenaya arintaasna waxay tahay qofka wadankaasi waa qof proud ku faraxsan yaqaan taariikhdiisa haddii aad tahay empty qof oo aan taariikhdiisa iyo dhaqankiisa aan aqoonin qofkii ku soo gaar ayaa kugu shubanaya sida qof dan kale marka taas waxaan ugu talagalnay saas waxaan uga dhignay waxaan ku sameynay background-ka waxa uu ah badi hirkacaya cirkii iyo caradii oo isku dhigan oo ka turjumaysa khayraadka aan leenahay badda weyn oo leenahay ka turjumaysa waxaan ku sii dhex dhignay vessel waxa la yiraahdo ama markabkaas wuxuu u taagan yahay qof kasto Soomaaliya oo wadankeena maanta xilka haya wuxuu og yahay waxa noogu muhiimsan security-ga ama ciidamada ugu muhiimsan ee la dhisayo Soomaaliya inay noqonayaan ciidamada badda because waxaan leenahay waa meesha khayraadka ugu badan ugu jiro waa meesha sida u fududna laga soo weerari karo waa in la dhiso a very strong naval power symbolkaasan u sameyn waxaan dusha ka saarnay 7 xidigood oo dahabiya oo u taagan 7 maamul goboleed waxaan rabaa dhageystayaalkayga inaan u sheego dhageystayaal badan oo ayaa arintaas waxay ka sameeyeen objection ama igala soo xiriireen
falcilmada ka sameeyeen oo waxay yiraahdeen war toddobada maamul goboleed waa isbedeli karaan yes waa anaga waa ognahay in isbedeli karaan waxaan leenahay hadday isbedelaan maamul goboleed hadduu ka baxo simple xidigta meesha laga bixina laakiin micnaheedu waxay tahay inaan ku cadayno oo dadka Soomaaliyeed ku cadayno awoodda wadanku inay qaybsan tahay oo statesku ay leeyihiin awood adag ay leeyihiin oo wadanku uusan wadan uu u taliyo dictator ama kaliya taliye dawladda dhexe dawlad xoog leh waa tahay laakiin awoodda dawladda dhexe waa dawlad awood ku tiirsan gobolada ku tiirsan haddii taas la waayana waxa imaanaya because maamul goboleedka marka la sameeyo dadka sameeyay ka fakareen waxay uga fakareen inaanan dib ugu laaban civil war inaanan dib ugu laaban dictatorial inaanan dib ugu laaban macnuhu waa sidaas gobol walbana marka loo sameeyo dad u qaas ah oo maamula absolutely waa nidaamka macnaha ay ka taagan tahay astaanta qaranku ay ka taagan tahay allaahida dhexda uga taala shantii xidigood calankii oo sidiisa dhexda uga sii jira waxyaabaha runtiina la ku amaanay oo aan ka helnay macnaha bogaadinta badan because waxaan rabaa wixii nala yiri wax ka bedelinaan sheegno wixii nala ku amaanayna sheegno waxa ka mid ah design-ka astaanta qaranka waxaan u design gareynay maasha Allah ilaahna asiibsiyo dadkuna aad u jeclaadeen reerqooyi ama hargeysa ayagu xoogaa way iga xumaadeen waxay nooga xumaadeen waxay yiraahdeen war astaantan annaga ma nihin state hanaga dhigin hal xidig maadaama shanta xidigood aan mid ka nahay marna maamul goboleed inaan noqono jawaabtu meeshaas waxay tahay yani waa dad iskood isu taagay wadanna soo magacaabay taas waxaan jecelnahay marka in waxaan u daynaynaa doodaas mar kaleeto laakiin annaga ma aaminsan in Soomaaliya kala goodo shanta xidigood waxaan meesha ugu dhignay xidigtana aan Allah ugu sii dhex dhignay micnay leedahay micnahaasina waa in aysan Soomaaliya aysan weligeed kala gooyin inta iskaga isu jirto in iskaga soo dhawaato maahan inaysan si kala tagin soo marna in wax go'aan balse arinta waqooyi galbeed waa arin siyaasada waxaan u daynaynaa taas dadka siyaasiyiinta macnaha anagu siyaasiyiin wana laakiin dadka hadda ku jiraan u daynaynaa balse waxaan rabnaa inaan ku qanciyo dadka reer waqooyiga contradictory ma aha iskama soo horjeedo in maamul goboleed calaamadoodina aad leedahay oo xidig aad leedahay dahabiya xidigna aad leedahay oo ka tirsan shantii Soomaaliya labadaba aad leedahay oo laba xidigood meesha ay kugu jiraan waxaan u aragnaa inay tahay sharaf iyo amaan umaarna wax dhiba inay tahay marka calankana saasaan u design gareynay astaanta qarankana saasaan u soo meeshii marneed sida wadankan oo kala sheegtay Harambe ugu taal ama halku dhig lagu dhigay waxaan ku qornay sinaan iyo midnimo inay sinaan jirto cadaalad jirto midnimona ay jirto waxaad ii sheegtay calanka inta uu ka kooban yahay inta kala uu ka kooban yahay iyo wali waxyaabaha ay ka turjumayaan wali aniga daawadayaasha noomada sheegin inta ay idinku qaadatay in aad sameysaan calan noocaana absolutely waa mahadsantahay mar kale waa runtii waa u socday su'aashaas inaan sheego anaga waxay nagu qaadatay maalintii aan bilownay calanka inaan ka hadalno sidii loo sameey lahaa baaritaan aan galnay ilaa dhowr sano ku jirnay dhowr sano kadib waxaan go'aansanay calanka in la bilaabo iyo astaanta qaranka calanka kaliya intaan astaanta u gudbin calanka kaliya wuxuu nagu qaatay in ka badan hal sano inaan isu keenno ka doodno hal sano ka badan nagu qaatay astaantu waxay nagu qaatay almost 2 sano ka badan inaan ka doodno waxyaabo badan aan isbedelayay macnaha markii xataa aan diyaar gareynaynay anagu astaanta 7 calaamadood 7 xidigood ku taalan ku 7 xidigood mid waxay u taagan tahay Muqdisho maamul goboleed ma ahayn lagama hadlayn xataa laakiin anaga waxaan ugu jirta fikirka one day inay imaan doonto wayna timin hadda maanta jaa waa socotaa Banaadir state marka waxay nagu qaaday runtii waqti aad marka la isku daro labadooda 3 sano wax ka badan nagu qaaday si fiican caqabada idinkaga timid danka bulshada intay leegtahay runtii hadda waxaan isticmaalnaa wax la statistics waxaan ku gauge gareynaa ama ku cabirnaa dadkana daawaday intana taageersan iyo intana soo horjeeda xisaabtii ugu dambeysay aan sameynay waxay ahayd 8 qof oo daawata programkan every year individuals oo daawata hal qof waa naga soo horjeedaa 7 waa taageersan tahay that means marka percentage loo bedelo waxa weeyaan waa 90 almost 90 waxa waa 92% inayna taageersan tahay 8 na inaga soo horjeedo ama 10% meelaas inaga soo horjeedo waliba waxyaabo cajiibka ah oo hadda aan runtii aan ku faraxsanahay rabo shacabka in la waxa kamida kaliya taageero ma aanan helin
waxaan la dhiirigelin waxaan la dadkii ayagii ayaa waxay sameeyeen research baritaan sameeyay ayagii noo soo diray informationkii information waxa jira xataa anaga qaarkeen aanan ogeyn oo dad shacabaha Soomaaliyeed ay noo soo direen nin waxa jira hadda aan jeclahay inaan mahad celiyo magaciisa hadda ma xusuusto Sweden jooga wuxuu noo soo diray ama aan helnay calanka Soomaaliyeed exactly maanta aan haysano 1820 iyo somethingkii in Finland ay rabtay inay samaysato oo rejection lagu sameeyay waxaan rejection lagu sameeyay cibaado ka dambaysa macnaha dad inay isticmaalayeen kaleeto ay arkeen daraadeeday u diideen rabayna inay calan u gooniyo sameeyaan calan gooni macnaha calan rabeen inay sameystaan proposalkii ayuu ku jira la soo bandhigay anaga ma aanan ogeyn informationkaas qof Soomaaliya oo daawday ayaa nala soo xiriiro noo sheegay marka taageerada runtii aan helna aad u far badan tahay we are encouraged macnaha aadan naloo dhiirigeliyay aadan ugu faraxsanahay wali waxa ka dan madaxda markaan la hadalno waxay yiraahdaan waa ognaa barnaamijka inaan wadaan wada arinta hal wado macnaha anaga laftirkeena waxaan rabnaa shacabka marka hore inay ka dhaadhacdo oo ay fahmaan muddo intee leega ayaad rabtaan inaad ku soo gunaan programkan oo aad calankiina haddii marka ummadda dhan isku raacdo aad bedeshaan well عنك بدل كيسو معها وح أنجا نويالا وحويالا شعبك الصومالي ضدنا أنجا وح نويالا كلي إن شعبك كذا لعنه دتكو إني قاتان لفهمه كتبنا مركي دتكو قاتان إن proposal آن سمينه petition إن سمينه أنا كاشان إن حبناها برلمان كأون نتاجرسن سنترين نتاجرسن يحبناها دولة دكتور نتاجرسن ورنتي ولي ما نارك نقف rejection وسمي أنت الله إني حبناها دولة ده قفني يدور كجوجا ما نارك قفل بابو فيري وحوي أوكي وهراء صعدة هلا سوى البرنامج مركا مالنتا يدا waxay ku xiran tahay sida anigu waxaan dad oo parliamentarian waa wadankeena parliament maamulo parliamentku inay ansixiyaan sanadka loo gudbiyo ansixiyo ama ayagoo isla jira ansixiyaan kadib madaxweynuhu saxiixo simply that is all it takes intaasay u baahan tahay inay samayso laakiin inta ka horeysa kaliya marna calanka inaan bedelno because of inaan bedelno waxaana calanka inaan bedelno marka calanka uu bedelmayana dadka shucuurta Soomaaliyeed iyo fikirka Soomaaliyeed iyo aragtida Soomaaliyeed say isu arkaan iyo say caalamku arkaanba inaan bedelno waxaana qofka Soomaaliga ahi inuu noqdo qof Soomaaliya oo aan marnaba ku sameeyeen compromise dhaqankiisa iyo diintiisa no matter cilad kasto maro baahi kasto haysa inuusan marnaba ogolayn in laga fargeliyo laga taabto lagala hadlo lagala doodo dhaqanka asagu uu leeyahay diintiisa iyo Soomaalinimadiisa iyo wadanimadiisa inuusan u ogolaan qof shisheeye inuu taliyo in aan ka hinaasono ka masayrno in shakhsi kale uu wax noo yeeriyo ama ajnabi wax noo sheego dan madax banaan oo wadankooda ayagu madax banaan waxaana taariikh arinta noocaas waxaan ku jirnaa campaign macna calanka dooditaankiisa kaliya aan ka doodino ma aha runtii in salaf ayada laftirkeeda kaliya ma calanka in la aadayo dadka Soomaalida waa hadda taageerayaasheenu waxay ku baraarugeen taariikhda Soomaaliya waxaan sababta aan u sheegnay boqortooyinkii sababta aan rabno inaan u sheegno dadkaan la leeyahay midgo iyo xaral leeyahay inay dadka ugu qiimaha badnaa dadka ugu sharafta badnaa waxaana waxa soo banaanka inoo soo marka waxaas banaanka la keeno waxa dhamaanaysa in qof la yaso waxa dhamaanaysa apartheid macnaha maanta waxaan ku jirnaa informal apartheid ee Soomaaliya ku jirta oo anaga dhexdeena anagu inaan ismadabta koorno campaign-kan wadaan kaliya calanka ma ahan dhanka kalena wad campaign gareynaysan oo waxaad rabtaan in aad tirtirtaan macnaha iyo waliba sheekooyinka dadka ay aaminsan yihiin midgaan iyo gabooye iyo waxyaabo noocaas ba absolutely so waxaana maalinta macnaha marabno ujeedadaan su'aashan ugu jawaab tahay marabno inaan boobsiino bedelka calanka waa awood walona maanta inaan petition baarlamaanka qorno waana lagu martiqaad waxa la yiri soo qora petition baarlamaanka soo qora macnaha noo keena waxaa jira committee study committee loo sameeyo macna loo sheeg laakiin marna hadda inaan tagno waxaan rabnaa horta shacabku horta wax badan jiro oo loo baahan la fahmo shacabku horta ku baraarugo ha fahmo calanka kaliya inuu qaldan because calankii haduu qaldamay wax badan la qaldamay dhaqankii baa la qaldamay diintii baa la qaldantay wax badan naga qaldamay wixii oo dhan in lagu baraarugo oo dadkii hadii calankii inta loo hosgaliyo la maanta calankii waa la bedelay doodii waa istaagaysaa marna marka doodii inay istaagto waxaan doodii inay socoto waxaan dadku waxaana muddo sanad wax la mid ah inay qaadato meel kasta ay gaarto qof kasta Soomaali ay taabato qofka Soomaaliga ah mid kale waxaan rabnaa inaan u horseedno in su'aal la isweydiin karo dad badana waxayna weydiiyeen markaan hadda program banaanka soo dhignay waxayna weydiiyeen in aan dad macnaha waxaan su'aalan in laga hadlaba inaysan baahaynba taabuu macnaha laga ma hadlaan inay tahay waxaan dadka Soomaaliyeed ama shacabka hadda soo kacay maanta inaan
horseedno in wax walba waxaan diinta islaamka ka ahayn in su'aal iska weydii karo wuxuu haddaysan ba waxyi iyo quraan haddaysan ahayn ama islaam haddaysan ahayn waa la bedeli karaa su'aal la iska weydii karaa xagee ka yimid la dhihi karaa wadanna saas ku dhismaa xadaarana saas ku dhisantaa laakiin waxa nin isyaan la qaaya nin macnaha oo aanan noqon meel ka timid waa calankii wadankan u la qaaya wax Soomaalida ka hooseeyo weeye waana wax dadkan runtii aan maanta ku aragnay inay diyaar u yihiin inaysan sameyn aad baad u mahadsantahay waxaan soo istaagnay guntii gabagabadii programkeena waxaan rabaa in aan ku weydiiyo groupkiina ilaa intee qof ayuu ka tirsan yahay gudoomiye gaar ah ma leedihiin xagee waa fariisimihiina magac ma leedihiin groupkeena dad badan nahay oo waa aad aan u fara badanahay dhinacyada Soomaaliyeed oo dhan dad isku jiraanahay aniga oo ah gudoomiye that's why aniga banaanka aan u joogo aan uga hadlayo programkii speakerna ana u ah labadaba sida hadda nidaamka aan ku shaqeyno wax magaca oo aan leenahay malaha siyaasad gooni oo group aan taageersana ma jiro mucaarad ma nihin markasta waxaan aan taageersanahay dawladda markaa iska jirta waayo waxaan rabnaa inaan wax hagaajino waqtigan anagu siyaasadahan xataa waxaan aaminsanahay maantay inay fiican tahay hal dawladda de hal weydiyo su'aalo waxa la weydiyo laakiin in aanan dhexgelinin siyaasadda Soomaaliya waayo ujeedadeenu waxay tahay inaan wax saxno waxa maantay dawladdu iyo systemka ay ku socotaana ma aha waa system loo wada jeedo oo hadda hadii wixii hore aan saxno iyo dhaqankii hore iyo taariikhdii aan saxno waxa ka dambeeya ayaga saxmaya marka siyaasad group ma taageersanin mucaarad minhin kama soo horjeedo magac siyaasadeed ku urursana ma lihin xisbi siyaasadeed ma nihin waxaan nahay dad Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba iskugu jira oo u istaagay inay wadankooda wax u celiyaan canshuurtii wadanka ee aan kala maqnayn inaan wadankii ugu shaqeyno inaan baraarujino shacabka Soomaaliya inaan saxno dhaqankii Soomaaliya in aan dadkii ay noo jeclaadaan diintoodii iyo wadanimadoodii waxaan runtii aan uga mahadcelinayaa dhammaan xubnaha groupkeena waana group furan oo macnaha ma aha inta hadda aan nahay kaliya ma ahane shaqsigii Soomaaliya ee diyaar u ah in uu wax ka bedelo ama nala jaan qaado diyaar u nahay shuruudeena kaliya waxay tahay inaad tahay qof Soomaaliya inaad diyaar u tahay inaad wadankaaga wax u qabato inaad iska wax u qabto wadankaaga u shaqeyso inaadan faragelinin ama aanad mucaaradinin ama aadan mid ku xirnayn xisaabta siyaasiga ee maanta ka jirta wadankeena shuruudeena waa taas qof walba albaabka u furan in aad noqotaan xisbi siyaasadeed ee u tarsama madaxtinimada dalka no absolutely not xisbi siyaasadeed go'aanan arintaas mar hore go'aan ka gaarnay waxaan fariisanay kulankaas waxaan u maleynayaa it was 2007 labadii kun todobadii Madrid aan isku nimid jaamacadda probably meeshii aan jaamacadda ka dhiganay Madrid aan isku nimid waxaan go'aan gaarnay oo aan qoranay inaanan xisbi siyaasadeed noqonaynin aan u tartamaynin ninka noqonaya xisbi siyaasadeed ama gabadha rabta inay xisbi siyaasadeed noqoto ama ay ku biiraan ama dawladda waa loo shaqeyn karaa oo qofku citizen waa dawladda waa u shaqeyn karaa laakiin xisbi siyaasadeed hadduu rabo inuu noqdo qofkaasi banaanku ka yahay automatically groupkeen waayo waxaan diidanahay haddaad xisbi siyaasadeed noqotid waxa imaanaya wax la dhaho iska sii horjeed dano ama waxa English lagu yiraahdo conflict of interest xisbigaaga waxa laga yaabaa inuu wax aaminsan yahay ama uu wax rabo marka waxa dhacaysa dantii xisbigaaga iyo dantii iska wax u qabso inay isku hor yimaadaan waran asagoo ama iyadoo xisbi siyaasadeed ka tirsan oo wadanka ka jira haddana jecel in ay groupkiina ka sii mid ahaato ayna wax ka bedesho arinta taagan arintaas runtii aad ay u adag tahay waana wax aan go'aan ka gaarnay inaan samaynin waayo saan hore kuu sheegay waxay keenaysaa qofku markuu xisbi siyaasadeed waa ideology waa fikir fikrad xambaarsan tahay you have your own opinion political views ahaysata annaga viewgeena waxa waaye wadankeena waxbaa ka qaldan inaan wixii saxna rabnaa qofka xisbi siyaasadeed maanta ku jirana waxa weeyaan wuxuu rabaa wadankii xaaladda hadda jirta inuu u shaqeeyo wadankii u adeego waana wadani Soomaaliyeed laakiin kaalintaas uu leeyahay inuu wadankii u adeego oo shaqadii wadanka qabto raba annagu waa rabnaa inaan wadankii u adeegno laakiin waxaan rabnaa inaan u adeegno wadanka inaan ka soo bilowno qarnigii 7 aan ka soo bilowno marka waxaad moodaa xoogaa inaysan iskeeni karin way jiraan dad hadda xibno ku jira baarlamaanka ku jira rag dawladda u shaqeeya agaasimayaal dad ah way jiraan oo contact na la sameeyay oo yiri waa idin caawinayna waxaan u sheegnay inay banaanka naga caawiyaan waayo
ma rabno xisbigaas ma rabno macnaha influence-gooda in ay macnaha inay conflict of interest ay ku timaado marno qof kasta Soomaaliyeed waa u furan yahay albaabkan waa u mahad celinay waa wadaniyiin Soomaaliyeed oo wadankooda u shaqeynaya balse anaga mabda'eena waxa waaye siyaasadda inaanan gelin xil raadis ma nihin lacag dawladda kama rabno waxa markaan shaqeynayno ama aan meel aadayno anaga isku dirsana waa macnaha canshuurtii wadanka aan siilahayn qaaraan ka dhignay taasaan isku dirsana saasaan u shaqeynaa waxaan soo dul istaagnay guntii gunaanadka barnaamijkeena gaarka ah maxaad ummadda Soomaaliyeed kaga tagaysaa waxaan leeyahay marka hore waxaan jeclahay inaan ku mahad celiyo Wariyamaal thank you very much for this opportunity aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed inaan u mahad celiyo taageerayaasheen dadkana taageeray runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inaan helno malaayiin Soomaaliya oo diyaar u ah inay taageerto oo wax la bedelo khaasatan dadka da'da yar dadka dhalinyarada because madaxooda waa furan yahay aad baan ugu mahad celinaynaa ururka ama groupka asxaabtayda gabdho iyo rag iyo dumarba aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay shacabka inta kaleeto waxaan ka codsanayaa ama aan ka rajeynaynaa in ay la yimaadaan open minded ama madaxooda furan yahay qof walba dhankiisa inuu research ka sameeyo baaritaan inaad samaysid baaritaankaas wixii uu ku keenana aad nagula soo laabatid waxa kaloon rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo naga soo horjeeda anaga oo fikirka anaga aan wadna ka soo horjeeda waxaan diyaar u nahay inaan la fadhiisano meesha iyo goobta uu rabo la doodno haddii uu difaaca karo dhinaca kale anaga waxaan aaminsanahay waxaan wadnaa inay sax yihiin waa ku qanacsanahay bulshadii inteeda badan ku qanacday qofkii aan ku qanacsanayn hanoo yimaado media la tagaynaa social media meelo la meeshu rabo waa kala doodaynaa fiican aad baad mahadsan tahay aqoon-yahan Sufyaan daawadayaal waan rajeynayaa in aad ka bogateen horeysigan dhinacyada badan taabtay waan rajeynayaa in dhammaan ummadda Soomaaliyeed jacayl in ay wax ka ogaadaan bal calanka Soomaaliya maxaa ka qaldan sidee Soomaaliya ku timid aan raahday sidee boqortooyooyinkii Soomaaliyeed u shaqeyn jireen qof walbana uu halkan kaga bogan doono wareysigan intii soo daawatay hadii aadan soo daawan waxaan rajeynayaa in aad dib u laabatid oo aad ogaatid wareysigan waxa uu ku saabsan yahay daawadayaal barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij gaar ah intaan barnaamij lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagay sidaas nabadgelyo waa Baxar Saaf Media iyo waliba Amaal iyo Sufyaan oo idin leh sidaas nabadgelyo